Franka Ribery waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu wanaagsan dunida 10kii sano ugu dambeeyay. Wuxuu ahaa xidigii ugu caddaa ku guuleysashada abaalmarinta xidiga adduunka ugu fiican ee Ballon d'Or-ka 2013. laakiin sidoo kale Ribery waa dhibane la nool dhaawac soo gaadhay caruurnimadiisii. Ribery waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu shactirada badan ee kubadda. waa mid yaqaan wuxuu sameynayo si uu ugu qosliyo ciyaartoyda ay isku naadiga ka ciyaaraan, laakiin dareenkiisa farxadeed ee joogtada ah waxaa ku duugan dhaawac kaasoo baalmadow ka galay nolosha ciyaartoygan. Franka Ribery ayaa ku lug lahaa shil gaadhi oo daran markii uu jiray 2 sano, kaasoo ku reebay xagtin weyn wajiga ciyaartoygan. xagtintan ayaa ku noqotay ciyaartoyga musiibo iyo mid uu ku qarwo. xagtintan ayaa ka dhigtay mid laga maadaysto waqti uu iskuul ka dhiganayay waqooyiga waddanka Faransiiska. ardayda ay isku fasalka yihiin ayaa ku cunsuriyeyn jiray garaafada wajigiisa ku xardhan, laakiin xidigan wuu iska difaacay dhammaanba dhibaatooyinkaas iyo eedeymahaas una la dagaalamay. laakiin midda sida baan u dhaawacday ayaa ah waalidiinta ardayda iyo dadka uu ku odhan jiray eeg wajigiisa maxaa ku yaala, iyo waa mid aad u foolxun. meel kasta oo aan tago dadku way soo eegayeen, laakiin sababtu maaha inaan ciyaartoy fiicanahay ama qof wanaagsan ee waa calaamadda wajiga ku taala, ayuu yidhi xidigani. Frank wuxuu dareemay inuu yahay xayawaan laga maadsado oo keliya. mararka qaar qolkayga ayaan galaa anigoo keligay ah, waana iska ooyaa si aan u cadho burburo. xidigan ayaa laga soo cayriyey akaadamiyad uu tababar ku qaadan jiray kadib markii uu sameeyey rabshado. Franka Ribery ayaa qaatay kaarka casaanka tiro dhowr mar ah. wuxuu kaloo la dagaalamay ardaydii ay isku fasalka haayeen kadib markii ay ka maadaysteen wajigiisa iyo xagtinta ku xardhan. inuu ku guuleysan waayo abaalmarinta Ballon d'Or-ka sanadkii 2013 ayaa ahayd arrin uu aqbali kari waayo ciyaartoyga, waji gabaxna ku noqotay. sidoo kale dhaawac ciyaaraantiisa soo gaadhay ayaa ah arrin gebi ahaanba bedeshay habdhaqanka iyo dabeecadaha ciyaartoygan, taasoo ka dhigtay ciyaartoyga mid sal fudud oo seeflabooda. haddaba qisadan ciyaartoyga ku dhacday ayaa ina tusaysa in mararka qaar dhaawacyada yaraantaada ku soo gaadhay aad ka soo kabsan karto, weliba aad horumar ballaaran ku tallaabsan karto.